بسم الله الرحمن الرحيم waxaa la joogaa xiliyadii kuleelaha ama fasaxa iskuulaadkii la xiraayay dad badan ayaa maaragtay waxay isku diyaarinayaan safaro inkastoo sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore uu maaragtay covid-19 uu maaragtay socdaalkii iyo safaradii badnaa maaragtay aysan dadka u saamaxayn inay sameeyaan si walba ha ahaatee baryahan dambe waxaa aad u soo badanaya dadka Soomaalida xiriirka aadka u dhow la yeelanayo wadanka aan walaalaha nahay ee Turkiga dhalinyaro badan ayaa waxay u joogaan waxbarasho dad badan ayaa caafimaad u aado dad kalena waxay bilaabeen inay ganacsi ahaan maaragtay run ahaantii u aadaan Turkiga si walba ha ahaatee waxaan rabaa inaan maaragtay video gaaban aan maaragtay in kugu sharxo qaabkaad maaragtay aad fiisaha online ahaanta aad u xareysan lahayd haddii aad maaragtay ay kugu jirto inaad maaragtay mustaqbalka ama waqtiga dhow aad Turkiga aad tagto run ahaantii fiisaha online ahaanta loo xareystay ee Turkiga aad ayuu u sahlan yahay aad ayaa loo fududeeyay wax dhib badan maahan waan tusi doonaa gurigaaga adoo jooga ayaad sameynaysaa uma baahnid inaad safaarad tagto run ahaantii sida website-kan ayaad booqanaysaan oo xagga sare ku qoran waxaa iskale dowladda Turkiga ayaa iskale waxaan ugu talagashay in qaab online ahaan yani maaragtay dadka ay soo dalbadaan fiisaha sida ku muuqato xagga waxaa ku qoran in yani 3 step ama 3 yani maaragtay aad subinayso 3 step si aad u hesho fiisahaaga online ahaan yani maaragtay sheeg aad ayuu fududahay waa marka koowaad codsi ayaad diraysaa oo personal information-kaaga ayaad buuxinaysaa make payment lacagta ayaad bixinaysaa way dhamaatay waa la soo degaysaa maaragtay shay fiisahaagii aad ayuu fududahay run ahaantii haddii aad maaragtay intaadan sameynin codsiga haddii aad rabto inaad maaragtay wax yar aad maaragtay information dheeraad ah hesho xaggaas ayaa waxay ugu talagashay dowladda Turkiga wax alla wixii su'aalo ku saabsan fiisaha online-ka inay kaaga jawaabto marka su'aalo badan ayaa lagu soo koobay oo muhiim ah iyo jawaabahooda marka waad intaadan maaragtay codsigaada subin hadaad u baahantahay way eegi karaysaa tusaale ahaan oo kaleeto su-aasha koowaad waa maxay e-visa haddii aad u baahantahay ku dhufanaysaa jawaabteeda ayaa heli doontaa marka su'aalahaas saas ayay maaragtay su'aalahaas faraha badan ayay maaragtay soo koobeen oo dadka inta badan ay soo weydiiyeen marka su-aasha adiga ku qusayso kala dhaxbax oo fiiri jawaabteedana meesha ayaad ka helaysaa tusaale ahaan oo kale haddaan su-aashaas ku dhufto wadamada loo ogol yahay inay soo xareystaan online visa e-visa ayaad maaragtay lagu soo koobo xaggan waa wadamadan wadamo aad u fara badan weeyaan ayaa xareysan karaa waxaa kamid ah wadanka Soomaaliya ayaa kamid ah soo marka wadanka aad joogtid iyo dokumentiga aad haysato adiga ayaa og soo marka xaggaas ka dhex eeg haddii loo ogol yahay wadanka aad joogtid oo waliba aan jeclahay wadamada ugu badan adduunka inay ku jiraan khaasatan wadamada Soomaalida ay ku nool yihiin dhamaantood ay ku jiraan Kenya Ethiopia Soomaaliya Yurub oo dhan way ku jirtaa dabcan soo marka xaggaas ayaad ka eegaysaa okay barnaamijkeena aan si wadno markii aad maaragtay xaggaas ayaa waxa ku qoran apply now xaggaas ayaad ku dhufanaysaa soo wadanka aad joogtid ayaa gelinaysaa tusaale ahaan anigu Sweden ayaan joogaa Sweden ayaan ku qoraya xaggaas lambaradan meesha ku qoran mar walba waa qasab in aad hoos ku qorto haddii kale ka gudbi maysid save and continue ayaan leeyahay xagga waxay ugu qoran inaan maaragtay wax fiisa aan u baahnayn yani passport ama documenti Swedish haddii aan wato inaad muddo 9 maalmood aan Turkiga joogi karayo bilaa fiiso soo marka yani wax fiisa aan u baahnayn qofka haysto mataqaanaa Sweden passport okay aan dib uga laabano waxaan tusinayaa tusaale ahaan oo kale waxaan isku dayaa inaan tusiyo wadan fiisaha tusaale ahaan oo kale USA Mareykanka oo kale aan eegno USA Soomaali badan ayaa joogto qofka Mareykanka jooga ee raba inuu Turkiga soo aado xaggaas baad mataqaanaa waxaad ka dooranaysaa wadanka aad joogto lambaradana saan sheegay waa qasab qofka inuu maaragtay mar walba uu ku qoro meesha save and continue da okay waa kam xaribnay waxaa loo ogol yahay qofka jooga Mareykanka 9 maalmood
oo fiisaha 9 maalmood ayaa loo ogol yahay inuu joogo. Fiigana lacagta oo fiisaha fiigiisna waa $50. 9 maalmood ayaa lagu ogol yahay waana $50. dabcan haddii 9kaas maalmood ka dhaco waa cusboonaysiisa karaysaa, laakiin fiisaha haddaad maaragtay online ka u xariisanaysa 9 maalmood ayuu noqonayaa. fiiga laga rabana waa $50. waqtiga uu kaaga bilaabanayo automatic aniga hadda wuxuu ii geliyay 14 June oo maantay xilligan aan duubayo barnaamijkan. waad bedeli karaysaa tusaale ahaan oo kale xagaas ay ku dhufanaya haddii aad doonaysid inaad bisha soo socoto aad baxdo ama bisha kusii xigto soo xaga ayaan ka dooranaysaa taariikhda aad rabto inuu kaaga bilowdo adiga ayay kugu xiran tahay. okay xagaas markaad taagan tahay waxaad leedahay continue. personal information ayaa xaggan ku qoraysaa. su-aasha koowaad waa first name magacaaga koowaad, magacaaga labaad, taariikhda aad dhalatay, halka aad ku dhalatay, magaca hooyada, magaca aabaha, passport numberkaaga iyo waqtigu soo baxay iyo waqtigu dhacayaba. okay wax aad u fudud waaye. email addresskaaga oo aad muhiim u ah oo lagugu soo diri doono fiisaha, phone numberkaaga iyo addresskaaga. intaas ayaad buuxinaysaa kabacdi save and continue ayaa leedahay. sidaas ayaa maaragtay waxaa lagu gudbi doonaa qaybta paymentiga lacagta aad ku bixinaysay. fiisahagana sidii ayaad ku heshay. aad ayuu u fudud yahay, yani wax aad u dhib badan maahan. sidaas marka fiisaha ku heshana tigidhkaaga ayaad jara doontaa. aad ayuu u fududahay. okay aan fiirino Soomaaliya qofka jooga siduu u xariisanayo. wadamada Afrika markaad joogtid oo Soomaaliya ay kamid tahay wax yar ayuu ka yara duwan tahay, aanan aad u badnayn. waxaa la socda shuruudo yar waan tusi doonaa. Soomaaliya ayaan doortay. okay Soomaaliya waxaa loo ogol yahay 30 maalin ayuu fiisahaaga yani shaqay doonaa laga bilaabo maalintii aad adiga aad doonaysid. qiimahana fiigana waa $40 meesha Mareykanka ka ahay 50 adigu waa 40 qofka Soomaaliya jooga oo document Soomaaliya wato. okay save and continue aan dhaho. marka wadamo badan oo Ethiopia, Kenya, Soomaaliya ay kamid tahay waxaa la socda formka shuruudahan ayaa la socdo. waa in qofka shuruudahan uu buuxi karaayo si yani fiisaha uu online ahaan ugu helo. $40 ayaad bixinaysaa, lacag kale lagama rabo. kabacdi tiidkaaga ayaa jaranaysaa. su-aalaha yani shuruudaha iska akhri haddii aad awoodid. fiisaha gurigaaga adoo jooga ayaad maaragtay soo degsanaysaa si lamid ah sida dadkan kale maaragtay sidaan tusina Mareykanka kale yani maaragtay sidoo u sameeyay ama Yurubtan kale. waa inaad passport yani maaragtay haysato oo shaqeynayo oo dhicitaankiisa ay ka harsan tahay 6 bil iyo wixii ka badan waa inuusan dhici rabin macnaha. waa in yani maaragtay aad hotel ku kireysan yahay, ticket go-an baaga ah haysato, aad wadanka aad markaad kusoo laabanayso markaad ticket garanayso waa ticketka waa inuu go-an baaga hado. waa in yani u yaraan $50 aad haysato per day maalin walbo intaad waqtiga meesha aad joogaysid. tusaale 30 maalin ayaa lagu ogolyahay. 30 maalin oo min $50 maalintii waa inaad haysato, yani lacag kugu filan oo meesha intaad joogtid aad isku celceli karayso waa inaad haysato. okay waa in yani maaragtay sheeg haysato documenti xoojinayo passportkaaga ama hadday ahaalad fiisa hadda kor aad ku tagtay wadamadan Shanghai country ama USA ama UK ama Ireland haddaa haysato yani maaragtay sheeg uu ku leeyahay maaragtay sheeg. markaad shuruudahan iska akhri waa inaad si ganacsi ahaan yani maaragtay ama business ama dalxiis aad wadankaas yani sababta u socoto waa inuu noqdaa. maaragtay marka shuruudahan oo kale markaa wada buuxisid haddii aad awoodid tan tiga saare waa shuruudo waana qasab in yani maaragtay aad shuruudahaas buuxiso haddii kale yani ma ka gudbi karaysid. save and continue ayaa leedahay. and then waxaad buuxi doontaa personal informationka oo magacaaga koowaad, labaad, waqtiga aad dhalatay, hooyada magaceeda, aabaha magaciisa, telefoonkaaga, addresska, waxyaalahaas noocaas oo aad u fudud ah. save and continue ayaa leedahay. adna lacagtii ayaad bixi doontaa oo $40 aheyd. sidaas ayaana fiisaha ku heli doontaa adigana. marka waa kaasay Soomaalida joogto Yurub doonayso ama Carabta ama Soomaaliya ama Afrika meesha rabto aad qaabkaas ayaa fiisaha online ahaanta maaragtay u xareysan karaysaa. waliba waa maaragtay system aad u fudud weeyaan. mobile safaarad iyo ama dad kale inay lacag ka qaataan fiisaha yani maaragtay lacag aan kugu keenin kuna shuruudaha ku xiran badana waa kuwa la buuxi karaayo
dadka Soomaalida ee qurbaha joogto kolley shuruudo saayida baasaboorro kale ayay wataan shuruudaha aad uma adko dadka Soomaaliyan joogana shuruudahaas ayaa ku xiran qofkii buuxi karaa visa online ayuu xariisan karayaa run ahaantii waxaan isku dayayaa wixii su'aalo oo intaas dheeraada aad qabtaan in ayaan maaragtay kaga jawaabo haddii aad maaragtay u baahataan halkaas ayaan kusoo koobayaa videogan. Hadda ayaa mahadsantiin.